kulan wacan u wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta wada nagala xidhiidha email kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay haatan naga soo gaadha dalka Itoobiya qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya oo lagu soo rogay bandow kadib markii maalintii shalay iska horimaad xooggan uu ku dhaxmaray ciidamada makalakayaaga ee magaalada Addis Ababa iyo waliba xooga gafaano oo ku dagaalamay Itoobiya ayaa sheegtay in habeenkii xalay ay soo qabatay in ka badan 120 dagaalyahan meesha xooga gafaana bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen inay wali ka dagaalamayaan magaalada Addis Ababa ciidamadoodiina ay ku sugan yihiin caasimadda dalkaasi Itoobiya haddaba wararka iskhilaafsan ee ka soo kala baxaya labada dhinac ee ku dagaalamay magaalada Addis Ababa iyo xogtii ugu dambeysay oo aanu la xiriirnay Israa'iil ka madax banaan xaaladda dalkaasi Itoobiya ayaynu daawadayaal ku qada dhigi doonaa barnaamijkeena waxaa kaloo daawadayaal aad ku maqli doontaan dowladda Eritrea ayaa maxaabiis fara badan oo u dhashay qoomiyadda Tigreega oo ka sii daysay taasi oo loo malaynayo in wadahadallo in dhawaalaba soo jeetamayay oo u dhaxeeyay xoogagan idhaahda Tigreega iyo waliba dalkaasi Eritrea in ay midho dhalkoodii ay haatan bilaabatay waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan Faana ayaa sheegtay inay guulo hordhac ay ka gaadhay dagaaladii ka socday deegaanka Amxaarada sidoo kalena waxa ay sheegeen inay isu soo dhibeen ciidamada tiro badan oo kamid ah ciidamada makalakayaaga dhanka kale aqoonyahan fara badan oo ka hadlay dowladda dalka Soomaaliya ayaa sheegay in Itoobiya ay soo qaban qaabinayso marxaladii ugu dambeysay ee ciidamadeedu ku qabsan lahayd dalka Soomaaliya taasi oo la sheegay in dowladda dalka Soomaaliya ay soo diyaarsanayn sidii ay uga hortagi lahayd dalkaasi Itoobiya wax qorshe aan u sajirin sidoo kale aqoonyahankan uu kamid yahay Professor Cabdiwahaab ayaa sheegay in dowladda dalka Soomaaliya ay gabi ahaanba ku fashilantay qunsuladii iyo waliba sidii iyo qaabkii looga hortagi lahaa dalkaasi Itoobiya hadaba xog faahfaahsan ayaynu daawadayaal ku maqli doontaan barnaamijkeena sidoo kalena madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa bayaan uu soo saaray xisbigiisu waxa ay sheegeen inaysan aqbalin amba ay ka hor yimaadeen wada hadal la doonayay in lagu dhaxdhaxaadiyo asaga iyo waliba madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo ku tilmaamay in wada hadallada wax Soomaali ka sokaysa aan lagu wada hadli doonin hadaba marxaladda Soomaaliya oo khatar maraysa ayaynu daawadayaal sidoo kale ku qada dhigi doonaa barnaamijkeena barnaamijka waxa ila qada dhigi doonaa saaxiibka Dr. Shido asagoo inta badan ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay aan idhaahdee dalkaasi Ethiopia iyo guud ahaan Geeska Afrika soo dhawow Dr. Shido waan dhawahay saaxiibi waxaynu ku horeynaynaa bal Addis Ababa de wad la socoto maalinta shalay iska horimaad xooggan baa ayaa ka dhacay ciidamada ammaanka gaar ahaan Federal Police waxay sheegeen hadii ay ku soo ogol yahay in 120 dagaalyahano hubaysan inay gacanta ku dhigeen laakiin Faana way beenisay waxay dhaheen wax dagaalyahano oo wixii hore dagaalka shalay galay mooyaan in ciidamadana wali ay ka dagaalamayaan oo ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa oo ay xaafadaha haystaan bay sheegeenba xagga beentana de kulli xagga dawladda u dhow dawladdu ma ogola in maartay ay wax ka baxaan magaaladana de bandooba lagu soo rogayo waa tan la socotay marka bal xogto faahfaahsan waan u gali doonaa qodobkaasi oo si fiican baan Addis Ababa ku faahfaahin doonaa saraakiil ka madax banaana waynu la xiriirnayba marka bal aan ku horeyn Eritrea iyo nimanka lagu magacaabo TPLF maxaa dhexmar ciidamay soo dishay baa leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Colonel Faragodow dowladda Eritrea ayaa warbaahinteeda waxa laga sii daayay in dowladda Itoobiya waxa ka wada dowladda Eritrea in ay cafis u fidisay saraakiil iyo ciidamo lagu qabtay dagaalka ka dhacay gobolka Tigray dowladda Itoobiya ay ku dagaalamayeen isbahaysigii ay Itoobiya hogaaminaysay Eritrea ka mid ka ahayd iyo xoogga Tigray dagaalka u dhaxeeyay ciidamo lagu qabtay oo 2 sano ka badan u xidhnaa Eritrea inay Eritrea cafis u fidisay ciidamadan cafiska loo fidiyay ee sii deysay Eritrea waxa lagu sheegay in ay lagu sii daayay heshiis hoos oo dhaxmaray ayaga Tigrayga waxaan ogsoonahay in Tigray iyo maartay Eritrea waayadii ugu dambeysay laga dhaxwada waan oo in loo kala dab qaado in la heshiisiyo maadaama ay Eritrea ay dagaalkii la soo safatay dowladda Itoobiya dhowrkii sano ee dagaalka culus u ka socday gobolka Tigray ay Eritreanku ka garab dagaalamayeen dowladda Abiy Ahmed haddana wali ay Eritreanku ay ku sugan yihiin dhul deegaanka Tigrayga laakiin maxaabiistan la sii daayay ee Tigrayga ayaa ka dhigaya in ay Eritrea ay soo dabacday Eritreana ay ogashahay nolosha dadka Tigrayga Eritrea iyo Tigraygu aad bay u kala fogaayeen intii maartay waqtiga u dagaalada iyo waqtiga ka horeeyay TPLF xilka dalka Itoobiya haysaba nimankan Eritreanku maartay cadow aan
Tigray ahayn mayn ogeyn inay leeyihiin laakiin maanta haddii Eritrea sii daysay maxaabiista Tigray waxay ku cadaynaysaa in wixii hore la iska iloobay Tigrayguna ay soo degeen Tigrayguna ay hadda ay siyaasad iyo maartay saaxiibtinimo ay ka raadinayaan dalkaasi Eritrea saraakiishan waxaa leeyahay nin generaal ayaa ku jira oo ciidamada Tigray ahaa oo dowladda Eritrea saraakiishan ay soo daysay ayay xooga TPLF-na ay si weyn ugu mahadceliyeen madaxweynaha dalka Eritrea ninka lagu magacaabo siyaasi Afwerki oo ku sheegeen inuu qaatay tallaabo geesinimo leh xiriirka Eritrea iyo Tigrayguna uu hadda u muuqdo mid soo wanaagsanaanaya lagana yaabo inay Tigray iyo Eritrea ay hadda maadaama Eritrea iyo TPLF waqtiga ay TPLF dalka Ethiopia qabsanaysay isbahaysi saaxiibtinimo oo wada shaqeyn ay lahaan jireen laakiin waqtiga nimankan intay awoodda isbedeen dalka Ethiopia dhan ay afka u dhigteen ayaa hunguri waxaa galay show ilaa Eritrea wad la qartaan markaas colaadooda bilaabatay marka hadda kuwan Tigray hogaaminaya nimankan TPLF-ta ayaad moodaa inay hadda u dhimriyeen Eritreankii ama ay wax u ogol yihiin ama ay rabaan inay dhahaan war wixii hore wax ka daran ba soo baxay nin waxa soo baxay Cornel ah oo Oromaha oo nolol aan Oromo ahayn aqoonin iyo wax walba aniga iyo wax walba anigu fiican mooyeen inuu jirina walaalo dhibaatada dhaxan soo gashay aan xalino dhawaan warbaahinta Reuters waxay baahisay inay kiil Tigray ay gaadheen Asmara halkaan ay kula kulmeen dowladda Eritrea saraakiil ka socota arintaasuna ay ahayd sidii Eritrea Tigraygu ay wax ayaga dhaxmaray hoos loogu xalin lahaa marka waxa la dhihi karaa siyaasi for talaabo culus buu qaaday talaabo ka cabsi gelin doonta ama si weyn ay wax xanaaqi doonto dowladda Ethiopia ay u qaaday maadaama uu maxaabiis sii daayay Tigray oo saraakiil ciidan ah marka ma la dhihi karaa waxa midho dhalay wada hadallo u socday oo dowladda Eritrea lafteeda way isdabcisay oo waxaad moodaa inay Tigrayga ka soo jiidanaysaad moodaa ma la isleeyahay arintaas way jirtaa in Tigrayga ay Eritrea hadda ay door bidayso waxay door siyaasadu waxa la yiri saaxiibtinimo joogaan male laakiin dana joogta dana ay leedahay u gaar ah oo waqtigaas interest waqtigaas taagana Eritrea waxay aragtaa Abiy Ahmed inuu yahay nin aan waxba fahmaynin nin dagaal iyo fahmayo kaliya iyo dhul balaarsi meel baan qabsaday kaliya ku faanay inuu yahay marka Eritrea waxay ku qasban tahay dhibaatada ayaga Tigrayga dhaxtaalay in ay labadan qol isku danaystaan Tigraygu ayaga weeyeen cadawgoodu waa Abiy Ahmed cadawgoodu waa Abiy Ahmed cadawga labaadna waa Eritrea laakiin markii la isbarbar dhigo Eritrea ay qaadanayaan Eritrea waxay maanta Eritrea waxay leedahay Tigray sibay dhaantaa wixii anaga noo qabtay waxay idin qabtaan ninkan labadiina cadawgeena waa idinku maridaysaan ana hadda iga magan gashaan oo maxaabiistiin iyo wax kasto ee keen xidna aan sii daayo ninkaasi meesha dhaafiya Ethiopia hadda doonta burburiya saadontan ka yaara tiinina ani cafiyo Eritreankuna waxay leeyihiin hadda siyaasi oo aduna dayso wixii wax badan ku ogolaa jira aduna hadana aman ka helo marka labadaba damba hadda wada Eritrea damba wado oo waxay ka soo sabanayaan Eritreanku danta wata waxa waaye inay Tigray Abiy cadow kaga dhigaan sababtoo haday Tigray Abiy raacaan ayaga Eritreanka khatar bay ku tahay ayirtan khatar ugu tahay Ethiopia bad raadis iyo Tigraygu cadawgoodii hore si ah hadda is soo raacaan Eritrea khatar weyn bay wajiyo colaadeed ay wajahaysaa marka si ayna labada cadow Eritrea